السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياش شرفت له سومالي يونيفرس. balse inta aanan gudaha u galin mawduuceena maanta fadlan hubi in aad subscribe saarto channelkeena Somali Universe sidoo kale comment iyo like aad ka bixiso muuqaalkan si ay noogu noqoto mid dhiirigelin ah. mahadsanid. aadanahu idil ayaa ka siman jacaylka adduunyada iyo nolosha, sidoo kale waxa ay necab yihiin geerida. waxa aan ka mashquulnay cibaadada Alle oo ahayd hadafkii ugu weyneed ee dunida naloo keenay. dadka qaarkii oo nasiib leh ayaa fursad u helay in ay toobad keenaan kuna toosaan wadada hanuunka, halka qaarka kalena ay ku geeriyoodaan iyagoo ku taagan wadada khaldan. haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah, ma geeriyoonaya aadanuhu isagoo wax digniin ah hore loogu soo dirin? jawaabta ayaa ah maya. qofna ma geeriyoonayo isagoo Alle subxaanahu wa tacaala u soo dirin calaamado u caddeynaya inay geeridiisu soo dhowdahay. qofka caqliga u saaxiibka ah ayaa kuwan qaata calaamadahaas, halka kuwa kalena ay moog yihiin sabab la xiriira iyagoo qulubtooda ay ku badatay dunuubta iyo macaasida. inta uusan geeriyoon Nabi Daawud nabadgelyo naxariis dushiisa Allah yeelay ayaa Alle subxaanahu wa tacaala waxa uu ka dalbaday, Allahumma inna li xaaja, Allah yow agteeda waxa ahaaday xaajo. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa addoonkiisa ugu jawaabay, maa hiya ya Daawud, maxay tahay Daawudow? nabiyullaahi Daawud nabadgelyo naxariis dushiisa Allah yeelay ayaa ku yiri sidatan, alla amuuta xataa tuclimunii, in aanan geeriyoon ilaa aad i ogeysiiso mooye. Allah subxaanahu wa tacaala oo ah mid naxariis badan ayaa addoonkiisa ugu jawaabay sidatan, laka haadaa, way kuu sugnaatay Daawudow. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa u yimid malakul mowt. Nabi Daawud ayaa ku yiri malakul mowt, waxaan Alle ballan kula galay in aanan geeriyoon ilaa uu i ogeysiiyo mooye, ama i tuso calaamad ii caddeynaysa geeridayda. malakul mowt ayaa ugu jawaabay Nabi Daawud, Alle wuu ku ogeysiiyey. diriskaaga miyaanu geeriyoon? dhabarkaaga miyaanu isku soo godan? garkaaga miyuusan ciroobin? hadafka laga leeyahay qisadan ayaa ah in Alle subxaanahu wa tacaala addoommadiisa u soo diro daliilo u caddeynaya in ay geeridoodu soo dhowdahay, sida in uu geeriyoodo saaxiibka. waa fariin kugu socota adiga in maalin unaad geeriyoon doonto, balse aad moog tahay. haddaba daawade, maxaa kula gudboon in aad samayso si aad ugu fogaato geerida lama filaanka ee loo yaqaano mowtul faj'a? in aad badiso sadaqada ayaa reebta geerida kadiska ah iyo carada Rabbi. sidoo kale waxa ay kaa ilaalinaysaa khaatima xumada. ka dhig gacantaada mid furan, waxaa laga yaabaa in ay sadaqadu ku noqoto badbaado adduun iyo mid aakhiro. sidoo kale in aad waalidkaaga baari u noqoto iyo in aad xiriiriso qaraabadaada ayaa kaa reebaya geerida kadiska ah. salafkii hore ayaa ahaa kuwo necab geerida lama filaanka ah. Nabi Muxamed nabadgelyo naxariis dushiisa Allah yeelay ayaa baray saxaabadiisa inay akhristaan ducadan, Allahumma innii acuudu bika min zawaali nicmatik wa taxawuli caafiyatik wa fajaa niqamatik wa jamiici sakhatik, iyadoo lagu macneeyo wafajaa'ati naqamatik geerida kadiska ah. allahayow inoo wanaaji khaatimada. fadlan walaal nagu dhiirigeli like iyo comment si aan u joogteeno soo saaridda muuqaalada noocan oo kale ah. hana ilaabin inaad subscribe saarto channelkeena Somali Universe. mahadsanidin.